maalmihii u dambeeyay soo tarayaan taageerayaasha ku soo biiraya xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa xaflado soo dhaweyn bulshada u baahan isbedel dalka ka dhaca lagu maamuusaya soo dhaweyn qiimeynteeda iyo qadarinteeda leh waxaana maanta taageerayaal cududooda taageero ku muujinaya xisbiga wadani oo ka soo jeeda deegaanada Warcimraan lagu soo dhaweeyay xisbiga rajada mustaqbalka ee wadani waxaana gooreen halkaasi ka hadlay taageerayaasha ismuujinayay waxaana salaadiin iyo cuqaal ka soo jeeda deegaanka Warcimraan ay sheegeen in xisbiga wadani waxaynu ka filan aragtida dadka iyo madasha erayga intaas ay kaga baxayaan isaga iyadoo wax siyaare kuwa yiri waxaan ku wareejinay suuqyada baan ku wareejinay sidaas ay kaga filan eraygaas ay kaga baxayaan ku wareejinay inaha meelaha wartay lahay yar haareysay inay soo raaci doonaan mudulka reerka beesha budulkeeda iyo soo raaci doonaan korinjooynahay ay magaca iibsan jireen ba ومن محمد إسحاق وعلى يمين كامية بلادنا واضحين كرا أنا لو يتمسى لغضنا كل مئة تغيير قرابة هاي إلا أما كنت تغيير شيء يغيب بينه يوحي صوبا ميان قبيالتي ليديسان وحي ديسانا 60 يوحي ديسان ما يدعي خبيار أيها الأمور الرئيسية باشا كلمة كبحضي waxaanu siinaynaa codkayaga waxaanu siinaynaa beesha sugar awal baa weeye annagu beel siin mayno cod niman maalin dhaweeta yidhi waxaanu reerkii ku wareejinay sugar awal halkan waxaa indhihiinna idin macallina gudoomiya inaan cidi waxba cid ku wareejin ninbaa wuxuu yidhi golihii dhexe ee wadani waanu ka dhammaanay inaana ka dhammaan halkaasaan ku caddaynaynaa kaa kalena kayaga yihiin war wixii kaarkii galoo dhexe wadani sida u leeyahay xisbiga wadani maanta waa ka dhalinyarada somalilan marka laga yimaado cibraan isagu maanta horumar samayn karaa waa xisbiga isbeddeldoonka dhinaca kale waxay halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka ee xisbiga wadani iyo sidoo kale wafdi heer qaran oo baryahan dambaba ku sugnaa gudaha magaalada Buure xarunta gobolka Togdheer dadkeedu isku qaadayay haloo dulqaato baan leeyahay maalinta codku baynu ka codaynaa insha Allah habeen dhaweeto maayirka burcashir buu qabtay naseexayahay waan joognay wuxuu war waa shir reerkeenu leeyahay markii la xarooday wiil cadaan iyo calmareexan soo yaa dadkii waan hayaay waa ogtii maanta dalkeenu xag arrin ka marayo siyaasadda arrimaha dibadda inay ugu soo xidhantay waa og kuma tahay ayaa bedeshay qabyaaladda bedeshay ku wareejinay reer bare wax ku wareejinay horta waxa ogaataan qabiil wadan xukumaa ma jiro waa barabagaano dadka lagu nugoynayo ay taageerada ku muujinayaan beesha maxamed Isxaaq ama Cibraan maaha beel maanta timi waa aasasayaashii xisbiga wadani kuwii ka koobaha in gaarigii iibinayo in dekadii iibiyey gurihii dowladda ingiriisku soo iibiyey haddana wuxuu ina leeyahay beeshan waxaa lagu yaqaanaa waa beel burji iyo bili badan ilaahay biligaanaha nooga dhabeeyo oo wadana uga dhabe arag oo yaa beel laguu sheegin ee naga guddooma محمد شيخ إسحاق عبران وانو قدوني فرينتانا واقدبينيا وحاوية ضد حقو دي دونيا ومد حقو دي دوني سايا كمتهين وحاوية قبل كتوكدير واو ببدحات كسومالي لان أحمد شامح أحمد دقرو نقبايات تلفزيون كعالمي كسومالي نيوز تي في بورعو